Today I talk about this small. What are the benefits of living alone? Oh my days. Yes, today I talk about this bad of living alone, the good of living alone. I started the bad of living alone. If you are sick, you will not have someone to help you. If you need help, you will not have someone to help you. If you need appeal, you will not have someone bite your appeal. If you need to conversation someone, you will not have someone to conversation to you, because you choose to live alone. If you are doing work, only you can do it, because you choose to live alone. Some work you can't do it alone. Okay, I start the good of living alone. There is no completion to you. No one is yelling at you. Your life is free. You can come home when you want. You are learning morning management. You make the food you want. Really, you make the food you want. You go where you want. You go place you want. You make the job you want. You just need to do it. If you need a bad friend, you get it. If you need a good friend, you get it. You are required to good choice. So goodbye. nolosha qofka bini'aadanka kuma xirna in la nool yahay iyo in uu kaligiisa nool yahay. nolosha sida kuma xirna, waad noolaan kartaa kaligaa, waana lagula noolaan karaa. hadda mowduucayni aan faahfaahino. mowduucan waxaan kula hadlaynay in kaliga aad noolaato waxay ku xun tahay, in kaliga aad noolaato waxay ku fiican tahay. The good of living alone, the bad of living alone. macnaha kali noolaasha waxay ku xun tahay iyo waxa ay ku fiican tahay ka hadlaynay. markaan ka hadalno waxyaalaha ay ku fiican tahay waxaa ka mid ah in waqtigaad doonto meeshaad doonto aad aado, in waqtigaad doonto baxdo, aad gurigaaga waqtigaad doonto imaado, cuntadaad rabta karsato, wax walba aad dhahdana waan qabanaya aad qabsato adoon qofba amarka sugaynin. sidaa bay ku wanaagsan tahay. laakiin waxyaalaha ay ku xun tahay markii waa lasoo tirinaya la dhaho lama daaro. waxay ku xun tahay markaad xanuunsato kale ma helaysid qof ku caawiyo. koob shaax oo diiran qof kuu soo sameeya ma helaysid qof xabad kaniiniya kuu soo iibiyo markaad xanuunsan tahay. so qof aad haddaad la sheekaysato u baahan tahay ma helaysid, because kalibaad nooshahay. marka mowduucani waa intaa.